رئيسل وزراء حسن علي خيره markii uu shirka jiraa'id qabtay runtii si kalsooni ay ku jirto iyo dadnimo iyo waliba karti ayuu u hadlay degan oo maxaan ku ilaahay to qof og waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu ka hadlayo miisaanka ay leeyihiin ayuu maaragtay kama kala fogaan ayuu muujiyay marka رئيسل وزراء حسن علي خيره runtii hadal kooban oo macne iyo murti iyo xigmad badan xambaarsan yuu ku hadlay taariikhdana waxay noqonaysaa oo taariikhda ku galaya ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ama qofkii ugu horeeyay isaga oo aaminsan si sharci darro ah in xilka looga qaaday tanaasule ee isagu iscasilay waxaana sharci ah iscasilaadiisa ee xilka qaadistiisu sharci ma ahayn tadambaa sharciya ها أو صحافتنا وحنا كأصلا لا إن الحكي بالله قاعد يسعسلي سببته حقيقة هي الشرع إن الماركت هي دل كلية هاي ها إن لقى اللي حدا معها تاسو الشرع معهن لكن تنا الشرع يسعسلات ديسة وحاها بون صحافة هذا المركو هذا اللي يقدم بيجي الجواي ها مركه ها سببته صفة شرع يلا جماعة قاعدين إن محنكو إلى هذايته عد محنكو إلى هذايته لبع علي يعني اسمه الدين أفر يوح يسكو جنبه يعني oo xataa madaxweynaha iyo moogtahay gudoomiyaha baarlamaanka naftirkooda waa loo soo sheegay marka labada waa xagga dambe laga soo maamulay ha iyaga naftirkooda xog badan kama hayo xitaa sababaha looga qaaday hadii madaxweyne farmaajo la weydiiyo la dhaho madaxweyne maxaa xilka looga qaaday ra'iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu kaga jawaab garan maayo gudoomiyaha baarlamaanka ee laha maxaan ku idhaahdaa 70 iyo 100 baa codaysayna isna hadii la maxaa 70 iyo 100 kaasi xilkii kaga qaadeen oo ra'iisul wasaaraha lagu reeyay garan maayo waxa weeyaan marka labadaba waa la soo diray waa loo sheegay in xilka laga qaado ra'iisul wasaaruhuna wuu og yahay meesha laga weerar ha dalkana dad qarsoon baa maamula ha loo isticmaalaa iyaga waa qalin wax lagu qoro oo wareegtooyinka lagu soo saaro iyo warqadii laakiin inta badan boqolkiiba 90 awaamiirta fuliisa iyo hawlaha dawliga ah ee socda rag baa ka shaqaysanaya oo hawshan wata ra'iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu sheegay sababta uu tanaasulayo ee uu maxaan ku ilaahay xilka isaga casilayo xilka kow horta maanta waa maalinkaygii buu qofba maalin baa qaranka Soomaaliya uu maaragtay wax ka soo mutaabay maanta qaranka Soomaaliya anigu waxa iga soo mutay maanta waan u tanaasulay oo tayda tii qarankan ku bedelay buu raganimo weey geesinimo weey dadnimo weey wadaniyad weey وجريتانك شخصي يعني موقضة أو قاضي كريم مسؤولية إن وقرن كيسو تناسله أو أجاده ما أنت قرن كيسو إن وكم مذيعي حل كيسة كلا إن وحولي سي هناك الدولة يب كا كل هذا اللوجو صار فاضي قوري سوديب كاهي أنا أقدر إنسان وشيدنا كدم بيسا حل كقاضي استيدا يا كل هذا وحيالها نسيد كدس كأو دعي إن مدكرر ستهاي haddana waxay doonayba han noqotay maanta ana fudud si uuna khalkhal u gelin amniga qaranka iyo siyaasadda iyo maxaan ku ilaahay dhaqaalaha dalka waayo waxaynu nahay curdin dawlad aan wali si fiican cagaheeda isugu taagin sida daraadeed meel maaragtay lagu laga tami karo oo la isku jiijiidan karo ma aha أمان أذق ما هيصنو هي أدوات دستورية أما معاهد لسان أو دستورية أو محام كل هذا تكسر كمان كرا إن استشهاد كسياسيين تا مليهن إن عيدا كفلا أمني مليهن نقالة كفلا محام كل هذا دلك مليهن أو هذيب وسيس صدح مع الموضوع كله عيدا مد مشاركة بواي هذه مشاركة واي نفرمها كسر بحي سلا دراد أنا قرن كيجا أيان وتناسل سي أمني جيس نقاله سي السياسة دي سوا أين خلو قريب تاريخ ذبال ذهب وكجري خير أنا ومي شخصيات كتاجر سنة مملكة يعني سجارة أما عد جارة أما سجود ما تاجر سنة مي مواد سوماليات وحقول إنه أركتكين بتاعها لكن فكر كأركتدا إذا أنكو عبرية وحوية هاي إن وياهي رئيسل وزاريه أهورية أما مسؤولكي أهورية آذن عبد الله عثمان دبدي آذن عبد الله عثمان ولبا الدورش على كذا في شخصي أهورية أما موادنك أهورية سومرا سوماليا دانتا قرنك أو تناسله ما قرنا يعني وقفك كحيق دونا لكن قفك هو ريمجر نوت إن فرماشنا نعبها خيرنا عن شيء على ما إن خيرنا تاجر سنة فرماشنا ولي سياسة سوماليا ما تاجرين سيدا عن رميسنا هنا دبدا بقول تاجري مايو وحنا هوري وسو تاجري لكن موادك وحو حق أولي هاي إن عاد شيء يحسون أكثر شيء قليش يسوي شيء يسوي هدو وناك سمايو ولا شيء
khayre xalayta taariikhda Soomaaliya anigu ma garan karo qof kale oo Soomaaliya oo yiri danta qarankaygan isku casilay huis bal ii sheeg hadaan khaldanahay marka taasi waxay noqonaysaa sumcad karaamo iyo sharaf iyo cizi qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo ku mutaysto ayuu mudanayaa hadii uu jiri lahaa qof la siinayo ama mudanba sababtoo ah umayna baranin oo kumayna aqoonin oo umayna soo joogin oo marxaati kamayna ahayn ra'iisul wasaare iyo madaxweyne dhagta inta la qabto meesha la dhaafiyo mooyee ra'iisul wasaare iyo maxaan ku yiraahdaa madaxweyne ama wasiir ama xataa xildhibaan ama xataa agaasimo Soomaaliya meesha dooniba shanta Soomaaliyeed ha ahaatee yiri danta ummadaydan isku casilay